قالوا سميه قريه وجيستي وكدلي يدو قاونونا بنانك نوصل halkan aan ku suganahay waa qaburo ku yaala gubta degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaa lagu aasayaa Salaado Faarax Cali oo shalay galabtii saygeeda ku dilay degmada Wardhiigley sayga xaaskiisa dilay ayaa lagu magacaabayay Bashiir Cabdi waxa uuna macalinka ahaa iskuul ku yaala degmada Wardhiigley familka qaar oo la hadlay Shabeelle TV ayaa waxa ay sheegeen in si aad ah ay ugu xiriireen sida arxan darrada ah ee gabadhooda loo dilay iyaga oo madaxda dawladda ka codsaday in ninkaasi la soo taago cadaaladda magacayga waa Aamina Maxamed Cali waxa ay marxuumada dhimatay walaasheeda adeerkeyga dhalay oo aabbeeyga la dhashay gabadhu ninkan khilaaf badan ay ka dhaxeeyay muddo 7 bilood arinteeda socotay inuu furo u diiday tolkiisa iyo tolkeeda arinta ku jireen waxa ka dhaxeeyay soonka kadib inuu imaado oo gabadhu uu noo furo marka arinta gabadhin habeen hore xaafada imaaday arintan shalay dhacday familkeeda kale jirtay habeen hore xaafada imaaday shalin amarkaana qabsaday ani waxa iga tagtay 10 saac ay 10 saac rubi dhiman iga tagtay 12 saac rubi dhimashadeeda loo soo sheegay waa dareem kartaa adigu qof oo familka ka mid oo dhimashadiisa lagu soo sheego hadda ka tagay waxa codsaneynaa ninkaas in cadaalad loo keeno waxaan rabnaa annaka gabadhayna waa dhimatay Allah ya raxman raximin ninkii dilay iyo wixii ka dambeeyana fara kuma hayno sax cadaalada inaad geesiin warkayna oo tiraahiin in ninkaas la helo oo cadaalada la marsiyo walahi oo gabadhaas marsiya la marsiya rabnaa bas odayaan u baahnayn hebelo baan u baahnayn cadaalada u baahnayn aniga gabadha ayidida gabadha warbixin aan kaasi karo waxay tahay in la dilay madaxana laga dilay si xaasidnimo masar loogu tumay waa gartay daamankeeda aynan ishaynin ما فهمتي بالآدم كتوري ودنا والله قد افتح علاش والله قد افتح إذا أنت سوق مسمين ماذا حالك قد لك قبل لينا من كذا إذا ويدرني الناقنا ويدرن صح وأنا لحقلا صح أما ولا قد عودا ناقتن إما دقي سليرة أما ويدقي هليرة أنت بمسمين نكاس شرقالة وسميه قريه وجيستي وكدلي إذا قاونونا بنانك نوصل محمد إلهام على علي محمد إبراهيم وحنا حقوله ولا شيء إن شاء الله 10 ساعة عمل حاسس كأنه صور ما نجد كل ولا شيء هذا قصة بحذي نحدين كوي ممكن نحدين جريدة هذا اللي يصير شيء كعنك حق درنا هذا الشيء إلهي سبحانه وتعالى حنقول برنا إنه حق صبحيه أو صدالعيه muddooyinkii u dambeeyay magaalada caasimadda ay Muqdisho waxa ku soo badanayay dilalka arxan darrada ah ee loo geysto shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarkeena Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet